xildhibaanada dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. marka ugu horeysa waxaan codsan lahaa guddoomiyaha ka codsan lahaa iyo ku-xigeenadiisaba inaan maanta la wada akhriyin ee aynu xoogaa gaadhsiino ilaa haddaynu doonno waa ilaa kala barh aan gaadhsiino haddaan rabneen xoogaa intaga way waa badan tahay waa ilaa 108 qodob baan u malaynayaa in waa iska codsi in aynu xoogaa gaabino dabadeedna wixii su-aalaha la isweydiiyo waa arrin aynu rabno in muddo bil ah gudaheed lagu barto dhammaan marka akhrin maalin lagu dhameeyey xoogaa dhib bay keenaysaa sidaan is leeyahay saa darteed waxaan codsan lahaa in la jejebiyo marba aynu ka hadallo haddii ay suurtagal tahay aa guddoomiyaha iyo waxaas la daynayaan balada si laga yeelayaan isaga waa tahay cutubka labaad guddoon golaha shacab qodobka 11 labada isqarinaya haddii ay waa tahay cutubka labaad guddoonka golaha shacabka qodobka 11 iska dabadeeysan waatay qodobka 11 xafiiska guddoonka golaha guddoonka iyo xafiiska golaha shacabka uu ka kooban yahay koob ama guddoonka golaha shacabka guddoomiye ku-xigeenka koobaad guddoonmiye ku-xigeenka labaad habdhowraha iyo labadiisa ku-xigeen qodobka faqradda labaad habdhowraha iyo ku-xigeenadiisu waa inay yihiin xubno ka tirsan golaha waxaana soo magacaabaya guddoomiyaha isagoo la tashanaya ku-xigeenadiisa kadibna waxaa ansixinaya oo meel marinaya oo cod ku meel marinaya cod haldheeri ah tirada xubnaha oo gacantaag ah waxaa xilka ka qaadi kara golaha oo ku meel marinaya cod haldheeri ah kadib marka ay mooshin ka keenaan 25% xubnood qodobka 12 guddoomiye ku-xigeenada gudoomiyaha ku-meel gaarka ee golaha fadhiga ugu horeeya ee golaha shacbiga inta laga dooranayo guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen ee rasmiga ah waxaa si ku-meel gaar ah u sii guddoominaya xildhibaanka ugu da-weyn xubnaha golaha shacabka oo aan musharax ahayn haddii uusan isagu ka cudur daaran qodobka 13 doorashada guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen si waafaqsan qodobka 65 ee dastuurka golaha shacabka fadhigiisa koobaad ee uu shirku guddoominayo xildhibaanka ugu da-weyn waa inuu iska dhex doorto guddoonka iyo labadiisa ku-xigeen guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa waxaa cod qarsoodi ah ku aqbalaya guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa waxaa cod qarsoodi ah oo aqlabiyad ah ku dooranaya xubnaha
marka ay bannaanaato tagada guddoomiyaha halka waxaa sii haynaya marka ay bannaanaato xilka waxaa sii wadaya ku-xigeenada golaha ku-xigeenada goluhu shaqo kale ama qaban karo ilaa laga doorto guddoomiye taasoo u dhacaysa 15 cisho gudahood haddii kalfadhigu furan yahay haddii kalfadhigu xidhan yahay fadhiga ugu horeeya ee kalfadhiga ku xiga ayaa lagu dooranaya musharaxiinta doonaysa in loo doorto xilka guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenada waa inay yihiin xubno ka tirsan golaha shacabka musharax kasta waa inuu soo gudbiyo qoraal muujinaya rabitaankiisa oo ay ka socdaan laba sawir iyo taariikh nololeedkiisa ama taariikh nololeedkeeda musharax kasta wuxuu qoraalkiisa ku soo qeexayaa jagada uu tartamayo haddii ay tahay tan guddoomiyaha ama tan ku-xigeenada 1 iyo 2 xildhibaan kasta warqadda codaynta wuxuu ku ridayaa sanduuq marka hore faaruq ah dusha ka xiran gudihiisa uu ka muuqdo codayntu waxay noqon kartaa ilaa iyo 3 wareeg wareegga koowaad musharaxii hela codka aqlabiyada tirada guud xubnaha golaha shacabka ayaa ku guulaysanaya doorashada sida ku xusan qodobka 65aad faqradiisa 4 ee dastuurka haddii la waayo musharax hela tiradaas waxaa loo gudbayaa wareegga labaad waxaa ka qayb gelaya 4 musharax ee hela tirada codadka ugu badan ee wareegga koowaad haddii ay jiraan musharaxiin helay cod isla-eg oo barbardhac ah waxaa ka wada qayb gelaya waxay ka wada qayb gelayaan wareegga labaad oo tirada tartamayaasha ayaa kordhaya musharaxii ku guulaysta codadka aqlabiyadda ah tirada guud ee xubnaha qodobka 65aad faqradiisa 4 ee dastuurka haddii la waayo waxaa loo gudbayaa waraagga saddexaad xildhibaan waa daalay xildhibaan kan yar u dhiiba habo
بيج كلا بيتولاد ذكر عليها قيمة السي وريق السدحات وحن قيم كليا لابد مشرح ugu codka badan wareegga labaad haddii uu jiro musharax saddexaad oo helay tiro la siman mid ka mid ah labada musharax ee isku soo haray wuxuu iyaduna ka qaybgelaya wareegga saddexaad waxaana doorashada ku guuleysanaya musharax hela cod haleeriya ee tirada xubnaha codeeyay qaybta d haddii ay dhacdo in wareegga koowaad kadib ay isku soo haraan laba musharax oo kaliya sababtana ay tahay tanaasul ay ka tanaasuleen tartanka musharaxiinta kale waxaa si toos ah loogu gudbiyaa wareegga saddexaad ee ku xusan xarafka c ee isla qodobkaas waxaana markaa meesha ka baxaya wareegga labaad ee ku xusan xarafka ba ee isla qodobkaani labada musharax ee isku soo haray waxay ku kala guuleysanayaan cod haldheeri ah ee tirada xubnaha codeeyay markii codeyntu dhammaato gudoomiyaha KMG wuxuu furayaa sanaadirda codeynta waxaana la tirinayaa codadka kadibna waxaa gudoomiyaha KMG هذه آخرين يقول على يسوي قرنها كائن جي ولا رجعنا عندي كل اللي سده جقد الدنيا بلاها قال أنت أنا حفيز كأنه ولين الدنيا هو إنه كتبه حلقه وبايو حزب السياسة وأنا إنه شغل يسد ودرس دحدحاله طبعا doorashooyinka gudoomiye ku-xigeenka waxaa la waafajinayaa habraaca doorashada gudoomiyaha 11aad haddii ay wareegga saddexaad u soo gudbaan oo barbardhac noqdaan in ka badan laba musharaxiin u tartamaya jagada gudoomiyaha ee galay kaalinta koowaad waxaa toos loo aadayaa wareegga ama wareegyada xiga inta lagu kala guuleysanayo isla maalinta qodobka 14aad xilka gudoomiyaha golaha shacabka wuxuu mas'uul ka yahay fulinta idinka soo qabtay codka wararka qaar haddii ay kaatuu sheegay wuxuu mas'uul ka yahay fulinta iyo dhowrista xeer hoosaadka ilaalinta nidaamka golaha wuxuuna ilaalinayaa habsami socodka howlaha sida sharci dejinta maamulka iyo habmaamuuska qodobka labaad wuxuu furayaa xirayaa fadhiyada wuxuuna sheegayaa saacadaha barnaamijka iyo ajandaha fadhiga soo socda oo qoraal ahaan lagu soo wargelinayo golaha shacabka qodobka saddexaad wuxuu hogaaminayaa shirarka golaha qodobka afraad wuxuu kormeerayaa shaqada habdhowrayaasha iyo golayaasha xogayaasha qodobka shanaad wuxuu matalayaa kuna hadlayaa magaca golaha shacabka taas oo aan ka hor imaanaynin ama wax u dhimaynin hannaanka sharci dejinta qodobka lixaad wuxuu la xiriiraa baarlamaanka adduunka qodobka toddobaad wuxuu saxiixdaa heshiisyada caalamiga ah ee la galo baarlamaanka adduunka iyo hay-adaha kale ee quseeya howlihiisa kuwaas oo uu horkeenayo golaha qodobka sideed wuxuu kala dashan karaa ku-xigeenadiisa arrimaha siyaasadda iyo maamulka golaha 9 wuxuu gudoomiyaha guddiga joogtada ah iyo guddiga adeega baarlamaanka 10 wuxuu kormeerayaa maamulka golaha qodobka 15aad xilka gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka 1 gudoomiyaha golaha shacabka marka uu maqan yahay ama uusan qaban karin xilkiisa sabab kasta ha ahaatee waxaa dhammaan hawshaasi fulinaya gudoomiye ku-xigeenka koowaad haddii uu gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad maqnaadaan waxaa hawshaasi qabanaya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha 2 haddii ay dhacdo in gudoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen ay goluhu ka maqan yihiin
ama aysan awoodin inay soo xaadiraan ama ay guddoomiyaan waxay xubnaha fadhiya cod haldheeri ah 50+1 oo gacantaag ah ku dooranayaan xubin si kumeel gaar ah u guddoomiyeysa kulankaas. qodobka 16aad awoodaha guddoomiyaha xilliga fadhiga. 1 markastoo uu guddoomiyaha hadlayo waa inuu aamusaa xildhibaanka marka hadlayay loona dhagaysto guddoomiyaha si aamusnaan ku jirto. 2 guddoomiyaha ayaa mas-uulka ah dhaqangelinta xeer hoosaadka golaha waana in loo hoggaansamaa hagiddiisa. 3 guddoomiyuhu wuxuu hadalka ka joojin karaa xildhibaanada haddii uu ka baxo ajandaha ama uu ku xadgudbo habsami socodka fadhiga golaha. 4 haddii ay jirto foodo iyo nidaam darro guddoomiyaha wuxuu xiri karaa fadhiga wuxuuna ajandaha maalinkaasi dib u dhigi karaa kulanka xiga. 5 golaha haddii uu leeyahay fadhi ay warbaahintu bannaanka ka tahay guddoomiyuhu wuxuu ku wargelinayaa xildhibaanada iyo howlwadeennada in aysan isticmaali karin qalabka wax duuba ama taleefanada. 1 si warbaahinta loo saaro waxaa soo jeedin kusoo gudbinaya 10 xildhibaan kadib golaha ayaa u codeynaya. in guddoonka go-aan ka qaato isla markaasna amro in warbaahintu ka baxdo golaha. 6 haddii uu guddoomiyaha oo shir guddoominaya kulanka oo aysan goobjoog ahayn labadiisa ku xigeen ay ku timaado xaalad degdeg ah oo kalifaysa inuu guddoomin waayo kulanka wuxuu u wakiilanayaa xubin ugu da'da weyn ee kulankaasi fadhisa inay sii guddoomiyeyso. 7 xaalad degdeg ah oo qabsata shir guddoonka awgeed xubno loo wakiishay inay sii guddoomiso kulanka guud ee golaha ma bilaabi karto ajenda cusub mana go-aamin karto go-aan masiiriya. 8 si looga fogaado xaalad sababi karta in guddoonka baneeyo hoggaanka golaha waa xil saaran guddoonka inay ugu yaraan 2 xubnood oo guddoonka ahi mar walba fadhiyaan kulanka guud. qodobka 17aad xil waayida guddoomiyaha golaha iyo labadiisa ku-xigeen. 1 guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen waxay xilka waayi karaan arrimaha soo socda. ama geeri istiqaalo qoraal ah ugu soo gudbiya golaha ama mid oor ah oo uu ka sii daayo warbaahinta. maqnaansho cudurdaar la-aan ah oo gaaraysa 45 cisho oo isku xigta. waxaa gudub shareecada islaamka dastuurka qaranka xeer hoosaadka golaha ama shuruucda qaranka. xil gudasho la-aan joogta ah. Roman 1 dhimirkiisa oo wax u dhiman waali taasoo loo baahan yahay inuu soo caddeeyo guddi takhaatiir ah oo la aqoonsan yahay laguna kalsoon yahay. caafimaad darro joogta ah ama awood beelid uusan xilka la gudan karin taasoo loo baahan yahay inuu soo caddeeyo guddi takhaatiir ah oo loo aqoonsan yahay laguna kalsoon yahay. 3 mar walba oo ay muddadu ka dhammaato. 4 xukunka kama dambaysta ah ee ku riday maxkamad awood u leh oo uu mutaystay xabsi aan ka yarayn 6 bilood. qodobka 2 mooshin xilka qaadisa ku saabsan xubin ka mid ah guddoonka golaha kuna salaysan asbaabaha ku xusan farqada 1 waxaa keeni kara xildhibaano aan tiradoodu ka yarayn 3 meelood
hal meel 3 meelood tirada guud ee golaha codka xil ka qaadista wuxuu ku ansaxayaa aqlabiyad 3 meelood 2 meel ah ee xubnaha guud ee golaha 3 soo jeedin mooshin xil ka qaadis ku aadan gudoomiye ku-xigeenka waa inuu ahaadaa mid samaysan oo ku saleysan sharciga 4 mooshinka xil ka qaadista waxaa laga doodayaa loona cadeynayaa 10 cisho oo maalmo shaqo ah gudahooda laga bilaabo taariikhda mooshinka la keenay golaha cod baa la maqlayaa soo maha 5 haddii gudoomiyaha ama mid ka mid ah ku-xigeenadiisa ay soo wajahdo mooshin ah xil ka qaadis waxaa la marayaa tallaabooyinka soo socda 1 gudoomiyaha ama ku-xigeenada laga keenay soo jeedinta mooshinka xil ka qaadida waa in laga wareejiyo gudoomiyaha fadhigeeda inta ay dhammaanayso dooda iyo codayntuna waa qarsooday haddii gudoomiyaha ama gudoomiye ku-xigeenka uu lumiyo xilka si waafaqsan farqadda 2 ee qodobkan goluhu muddo 15 maalmood gudahooda waa inuu ku doorto gudoomiye ama ku-xigeenka cusub 6 soo jeedin mooshin xil ka qaadis xubin ka mid ah guddoonka waxaa la qabanayaa maalin shaqo saacadda shaqada iyadoo goobta lagu qaban karaa tahay xafiiska guddoonka ama xafiiska uu markaasi ku shaqeynayo guddoonka goluhu waana in si rasmi ah loo geliyo diiwaanka qabashada soo jeedinta golaha qodobka 8 qodobka 8 xilka habdhowrista iyo ku-xigeenadiisa habdhowraha iyo ku-xigeenadiisa iyagoo raacaya awaamirta gudoomiyaha waxay u xil saaran yihiin dhowrista nidaamka golaha nabadgelyada xasiloonida goobta iyo xubnaha golaha ama c kormeerka iyo hubinta dhaqangelinta jadwalka safarada xubnaha golaha kormeeridda iyo xanaanada hantida golaha kormeeridda xafladaha dhowrista habmaamuuska ilaalinta fadhiyada golaha iyo martida wixii kale oo howlo ah ee guddoonku u xilsaaran markaan qodobkan qaato waxaan ku wareejin doonaa qofka qodobka 9 qodobka markaa dhameeyo qodobka 9 nidaamka fadhiga golaha 1 gudoomiyaha ayaa ilaalinaya nidaamka golaha gudoomiyaha wuxuu fari karaa inuu nidaamka ilaaliyo xubin kasta oo ama xukuumadda ka tirsan markii 1 xubin hadlaysa ay ka baxdo arrintii dooda u furay xubin ay ku kacdo facal qaladeynaya nidaamka shaqada golaha si xubin ku kacdo anshax xumo ama dhaqan aan habboonayn xubin isticmaasha luqad hadal ahaan iyo qoraalba aan ku habboonayn golaha shacabka xubin huriso colaad isticmaasho luqad ay ku dheehan tahay anshax xumo gaf sharafdil hanjabaad iyo wixii lamida xubin garab marta ama ixtiraami weydo awoodaha xilgudashada gudoomiyaha golaha xubin si ula kac ah ku gardaroota ama hor istaagto habdhowraha oo fulinaya amarka gudoomiyaha golaha 2 xubin ama wasiir waa inay u hogaansanaato amar uu bixiyo gudoomiyaha ee ku saabsan habdhaqanka loogu baaqay hubintaasi ama wasiirkaasi inay dhowrto kaasoo ay ka mid yihiin tallaabooyinka soo socda 1 ama
ku noqoshada isticmaalka luqad aan ku habboonayn. B inuu isla markaas soo afjaro hadalka. C fadhiyada golaha shacabka oo laga saaro oo ay ka mid yihiin kulamada guddiga uu ka tirsan yahay inta maalintaasi ka harsan. In la damiyo ama codka la xiro mikrofonka gacanta waqti uu socdo fadhi golaha. Sidoo kale laguma hadli karo. Haddii goluhu dhexdiisu ka dhasho nidaam darro aad u baaxad weyn, guddoomiyuhu wuxuu isla markaaba dib ugu dhigi karaa fadhiga maalinta xigta. بسم الله الرحمن الرحيم. قضبك لبعضنا حي ورجلت قدوميها قدية يقدية هؤلاء قدية حلي كالكورك كو قدي والبوحة وديارنا يا وحقبك قوله سلسوا بالله كالفرق كوات انت لو قد جرو كالفرق قدام به وحنا كم إذا أخبر الله لو بهاي هاي الديارية شرعية قدي بوشقية بي لما وربحنا قدي قد بيجي سلوات دوله سي سوجينتا قلها قدي وسوجيدي دي howlaha kormeerka guddigu sameeyay warbixin kooban oo ah go'aanada iyo tallaabooyin ku aadan warbixinta guddiga. F caqabadaha iyo dhibaatooyinka soo wajahay guddiga ee ku aadan gudashada waajibaadkiisa. G go'aanada xukuumadda ee ku aadan talabixinta guddiga. C howlaha ama H howlaha qadiyadda ee guddiga iyo asbaabaha loo qaban waayey. I tala soo jeedinta guddigu siinayo guddiga imaan doona. labo gudoomiyaha guddi walba waa inuu soo jeediyaa warbixinta guddigiisa usbuuca ugu dambeeya ee muddada xilhaynta golaha si looga ansixiyo. saddex gudoomiyaha guddi walba ee xilka lagu wareejinaya waxaa la siinayaa nuqulka warbixinta guddiga uu guddoomiyuhu u noqonayo. B howlaha xogayaha guud ee xilliga kala guurka waa inuu u qaybiyaa warbixinada xubnaha ugu yaraan ka hor 14 maalmood muddada xilhaynta golaha. labo waa inuu ka diyaariyaa 4 boqol dhammaan warbixinada guddiyada ee goluhu ansixiyey. saddex waa inuu diyaariyaa howlaha fadhiga guud plenary ee nuqullo ka kooban arrimaha soo socda. qoraalada golaha uu ansixiyey oo ay ku saxiixayaan guddoomiyaha iyo xogayaha guud. B hadal jeedinada madaxweynuhu ku jeediyey golaha. C liiska sharciyada la hor keenay muddo xilhayntiisa. D liiska warbixinada guddiyada ay usoo gudbiyeen. liiska warbixinada wufuudda dibadda ee usoo gudbiyey golaha. liiska su'aalaha faahfaahinada su'aasha ee la hor keenay. liiska guddi wadareedyada petition ee loo soo bandhigay golaha. B liiska qoraalada papers ee la hor keenay golaha. liiska soo jeedinta la hor keenay golaha. liiska howlwadeennada hantida iyo deymaha haddii ay jiraan. afar xogayaha guud wuxuu ka diyaariyaa 4 boqol qoraalada lagu tilmaamay faqradda lixaad oo ka mid ah guddoomiyaha xilka ka degaya kuna wareejiyo guddoomiyaha xilka qabanaya. C habraaca wareejinta guddoomiyaha. kow usbuuca ugu dambeeya ee muddo xilhaynta golaha mid ka mid ah xildhibaanada ayaa wuxuu soo jeedinayaa tala jeedin lagu sharfayo guddoomiyaha. labo dooda waxaa shir guddoominaya mid ka mid ah xogeenada guddoomiyaha. saddex dooda waxay ku saabsanaanaysaa waxqabadka iyo caqabadaha uu wajahay xafiiska guddoomiyaha ee la xiriira maamulka iyo sharci dejinta. afar guddoomiyaha ayaa la hadlaya gabagabada soo jeedinta. guddoomiyuhu waxa uu warbixin yar oo kooban ka bixiya isticmaalka qalabka. shan xogayaha guud ayaa ka samaynaya kayd howsha soo jeedinta kana diyaarinaya qaraar gabagabada soo jeedinta. kaydka iyo qaraarka waxa ay ka qayb noqonayaan qoraalada loo gudbinayo guddoomiyaha xilka lagu wareejinayo. B gabagabada xafladda xil wareejinta guddoomiyaha xafiiska ka tegaya ayaa nuqul warbixinta u wareejinaya guddoomiyaha xilka qabanaya. cutubka saddexaad kalfadhiyada iyo fadhiyada golaha. qodobka 12aad kalfadhiyada iyo fadhiyada golaha shacabka. sida ku cad qodobka 66aad ee faqradiisa labaad ee dastuurka. golaha shacabka wuxuu sanadkiiba yeelanayaa 2 fadhi oo caadi ah. kalfadhi kasta ee baarlamaanka wuxuu soconayaa muddo 4 bil ah. labo kalfadhiga ugu horeeya ee golaha shacabka waxa uu furmayaa maalinta la dhaariyo xubnaha golaha wuxuuna xirmayaa marka ay dhammaato muddada 4 bilood ah ee dastuurka dalka iyo xeer hoosaadka ku cad. kalfadhiga labaad ee sanadkuna waxa uu furmayaa 2 bilood kadib marka ay kalfadhigii hore uu xirmo. saddex kalfadhi kasta marka uu dhammaado waxaa golahu u qaadanayaa 2 bilood oo fasaxa.
afar haddii sababo jira awgood kalfadhiyadu ay raaci waayaan habka kor ku xusan markaas waxaa kalfadhiga laga dhigayaa taariikhda ugu horeysa ee suuragalka ah shan fadhiyada ama kalfadhiyada waxay soconayaan ilaa iyo laga dhameeyo ajandaha horyaalla iyo hindisharciyeedka degdega ah lix gorow waxa uu qaban karaa kalfadhiyo aan caadi ahayn qodobka 22aad kalfadhiyada aan caadiga ahayn ee golaha sida ku cad qodobka 16aad ee dastuurka faqradiisa afraad kalfadhiyada aan caadiga ahayn waxaa isugu yeeri kara gudoomiyaha golaha marka uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soo dalbado isagoo uu tixgelinaya codsiga ugu yimid golaha wasiirada isla markaana uu guddoonku kusoo lifaaqo codsigii golaha wasiirada iyo madaxweynaha ayaa loo qaybiyaa golaha labo marka uu helo codsi qoraal ah oo ka yimid 20% xubnaha golaha shacabka saddex gudoomiyaha golaha shacabka qodobka 23aad xaadirinta fadhiyada golaha xildhibaan kasta waxaa waajib ku ah inuu soo xaadiro fadhiyada golaha labo xilliga shaqadu waxay bilaabanaysaa 9 subaxnimo waxaana ay ku eg tahay marka uu dhammaado ajandaha shaqo ee maalin kasta oo shaqo ah waqtiga salaada goluhu waxau saacadda 12:00 duhurnimo wuxuu shaqada ku ka baxayaa wuxuu kusoo laabanayaa 1:00 galabnimo goluhu waxa uu xaq u yeelanayaa 30 daqiiqo oo salaad casar oo kudkooda b maalmaha sabti ilaa khamiis waa maalmo shaqo maalmaha sabti isniin iyo arbaco waxaa jira fadhiyada caadiga ee golaha d maalinta axadda goluhu waxa uu la xisaabtamaya xukuumadda iyo heeraha madaxa bannaan ee dowladda e maalinta talaadada waxaa u qabsoomaya kulamada guddiyada sidoo kale xubinta golaha waxay u adeegayaan bulshada ay matalaan f maalin kasta oo khamiisa waxaa dhacaya shirka guddiga joogtada ah saddex in guddoonka baarlamaanka uu fadhiisto halkii loogu talagalay 10 subaxnimo shirkuna uu furmo afar haddii la heli waayo guntanka ama kooramka in guddoonkii baarlamaanka uu dib ugu dhaco furitaanka fadhiga muddo 1 saac guntanku haddii uu buuxsan waayo saacadaas kadib guddoonku waa uu xirayaa lix haddii la gaaro 10:15 subaxnimo waxaa la joojinayaa diiwaangelinta xildhibaanada waana buugga ama liiska loo gudbinayo xafiiska guddoonka golaha shacabka toddoba mudanayaasha ka soo dabamara 10:15 subaxnimo waxaa lagu qori doonaa liis gaara si loogula xisaabtamo si ku cad faqradda 8aad ee qodobka 8 soo daahidda 5 maalmood waxay la mid tahay maqnaansho hal maalina waxaana lala xisaabtamayaa dhammaadka kalfadhi kasta 9 tirada ugu badan ee mar keliya fasax ku maqnaan karta waa in aysan ka badan 50 xildhibaan 10 in fasaxa guddoonku uu bixinayo uusan ka badnaanin 30 cisho oo teelteel ama xiriira haddii halkii kalfadhi 11 xildhibaankii fasax la'aan ama cudurdaar la'aan ka maqnaada fadhiyada 3 maalin oo shaqo isku xiga waxaa la siinayaa wargelin qoraal haddii uu xildhibaankaasi fasax la'aan ama cudurdaar la'aan oo maqnaado muddo gaaraysa 7 cishana shaqo 7 maalmood oo shaqo oo xiriira ama teelteel ah ama hal bil gudaheed waxaa lagu ganaaxayaa ama laga jarayaa gunadiisa guud 5 meelood marka loo dhigo hal meel 1/5 5 meel marka loo dhigo mid maqnaanshaha maqnaanshaha sabab la'aan oo ka badan muddo ku xusan faqradda 11aad ee qodobkan waxaa loo gudbinayaa gudoomiyaha golaha si loo hordhigo guddiga anshaxa haddii xildhibaanku uu soo xaadiro bilowga fadhiga kadibna uu iska baxo fasax la'aan iyadoo aan kalfadhigii u socdo waxau la mid yahay lana xukun yahay xildhibaan ka maqan fadhiga haddii loo baahdo in la codeeyo xildhibaanada isaga baxay fadhiga socda waxaa loo samaynayaa xaadirin labaad 14 haddii xildhibaanka uu codeeyey ama golaha go-aanka uu qaatay uusan ka bixin fadhiga maqnaan xukuumaddiisa ma saameynayso codaynta iyo howlaha sharci ee go-aanadooda wax ka qaatay 15 xildhibaanka yimaada kulanka oo ka soo baxa codayn dhacaysa sabab la'aan wuxuu mutaysanayaa ganaax gunno oo gaaraysa 15% gunnada bishaas 16 haddii xubin ama xubno xildhibaano ah iyagoo soo xaadiray ay ku caddaato in ay si ku talagal ah u hor istaagaan guntanka habdowrayaasha ayaa u gudbinaya guddoonka si loogu gudbiyo guddiga anshaxa waxaana laga jarayaa 5 meelood oo meel gunna biloodkooda 17 warbixinta imaanshaha iyo maqnaanshaha xubnaha xilliga shaqada waxaa si kalgal ama
periodical kalfadhi kasta marka uu xirmayo loo soo bandhigayo warbaahinta golaha si ay deegaanadu ula socdaan xogta matalaadda wakiiladooda ee muddada shaqada. 18 lacagaha ganaaxa ee kala go'aysa xildhibaanadu waxay ku dhacaysaa khasnadda daryeelka golaha waana in 3 biloodba mar loo soo bandhigaa dakhliga xisaabtaas iyo sida loo isticmaalay. qodobka 24aad guntan ama quorum. kow aqlabiyadda tirada guud ee xubnaha ayaa noqonaysa guntanka quorum. go'aanada ka soo baxa shirarka waa sax sharci haddii guntan jiray xilligii codka la qaadayay. gudoomiyaha ayaa xaqiijinaya guntanka inta codka aan la qaadin isaga ayaana go'aan ka gaaraya goor walba oo hubinaya guntanka. 3 ka hor inta uusan codayn xubin kasta oo ka tirsan waxay u codayn kartaa in la hubiyo guntanka taasoo guddoonka ku qasbaysa inuu hubiyo guntanka. 4 codbixin kasta oo u baahan tiro cayiman oo aan ahayn kuwa u baahan hal cod oo dheeri ah ee xubnaha jooga inta aysan codbixintu dhicin gudoomiyaha waxa uu hubinayaa inay fadhiyaan tirada loo baahan yahay ee ay ku ansixayso codbixintaas. 5 haddii ansixinta mooshin ama qodob ajandaha uu u baahan yahay tiro 3 meelood 2 meel ugu yaraan 3 meelood 2 xubnaha golaha shacabka waa inay xaadir yihiin ka hor. 6 xildhibaanka kama maqnaan karo kulanka ajande u baahan codayn guntan gaar. qodobka 25aad ajandaha fadhiyada golaha. guddiga joogtada waxa uu diyaarinaya ajandaha fadhiyada golaha. ajandaha waxaa loo qaybinaya xildhibaanada ugu yaraan 20 saac ka hor fadhiga loo leeyahay. 2 gudoomiyaha guddiga waa in ay guddiyada kala tashadaan saamaynta gudoomiyaasha guddiyadu waa in ay guddiyada kala tashadaan saamaynta ajandaha ka hor fadhiga guddiga joogtada ah. 3 ajandaha waxaa loo tixgelinayaa in la ansixiyey haddii aysan ugu yaraan 10 xildhibaan bilowga fadhiga ama gudoomiyaha uusan u gudbinin mooshin qoraal ah oo wax lagaga bedelayo ajandaha iyagoo ujeedinaya arrin degdega. mooshinkaasna waa inay ku saxiixan yihiin xubnaha taageeraya arrin degdega waxay noqon kartaa sida soo socota. 1 xadgudub arrimaha diinta. xadgudub xuquuqda aadanaha iyo hay-adaha dowladda ama hay-ado kale. dhibaato dabiiciya. xasilooni darro iyo xadgudub xasaanadda iyo sumcadda xildhibaanada. 4 ajandaha haddii ay codsadaan 10 xildhibaan in wax cusub lagu soo daro ama wax laga bedelo waxaa guddoonka laga doonayaa in uu ku soo daro ajandaha isla fadhigaas haddii ay u codeeyaan 50% oo lagu daray hal tirada fadhida. 5 ajande hore oo ansax ah doodidiisu socoto ansixin labaad golaha looma keeni karo. ajande hore oo ansax ah oo ay doodiisu socotay ansixin labaad golaha looma horkeeni karo. 6 ajande kasta oo u baahan codayn waa in la sheegaa wargelinta kulanka ee loo dirayo xubnaha iyadoo la cadaynayo guntanka codaynta ee loo baahan yahay. qodobka 26aad xushmadda istaagga iyo fadhiga golaha. xubnaha waa inay istaagayaan marka dadka hoos u qoran ay soo galaan golaha. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya gudoomiyaha ama siihayaha xilka gudoomiyaha madaxweyne shisheeye oo lagu martiqaaday ama wakiilkiisa gudoomiye baarlamaan ee dalkale. 2 marka la fadhiyo golaha gudoomiyaha iyo labada gudoomiye ku-xigeen iyo xubin kasta oo gudoomiyuhu ku martiqaaday fadhiga waxa ay fadhiisanayaan xubnaha hortooda. habdhowraha ku-xigeenadiisa iyo xogayaha guud waxay fadhiisanayaan meel ka hooseysa meesha uu fadhiyo gudoomiyaha. xubnaha dowladdu waxa ay fadhiistaan dhinaca bidix ee kasoo horjeeda gudoomiyaha. qodobka 27aad kala horeynta howlaha golaha. marka uu qabanayo howlihiisu golahu wuxuu raacayaa nidaamka hoos ku qoran. 1 gudoomiyaha ayaa shirka furay sheegaya tirada joogta oo uu guntanku yahay. akhrinta aayadaha qur-aanka kariimka ah iyo xusuusinta alleh. 3 ansixinta ajandaha maalintaas. 4 qaarinta xubnaha cusub haddii ay jiraan. 5 waqtiga su-aalo weydiinta ama questioning time. su-aal wadareed sidoo kale. 7 soo jeedinta gudoomiyaha. 8 hindis sharciyeedka uu marayo akhrinta koowaad. 9 hindis sharciyeedka uu marayo akhrinta labaad. 10 warbixinta guddiyada. 11 hindis sharciyeedka maraya akhrinta saddexaad. 2 mooshinada la keenay. 13 wixii kale ee howlaga soo kordha. qodobka 28aad habka dooda iyo ansixinta xubnaha. xildhibaan walba waxa uu xaq u leeyahay in si xor ah u cabiro
lana xurmeeyo ra'yigiisa marka laga dhex doodayo golaha. xildhibaan kama hadli karo doodad haddii uusan fasax ka helin guddoomiyaha. 3 xildhibaankii la hadlayo golaha waa inuu istaagaa haddii uusan awoodin guddoomiyaha ayaa u ogolaan kara inuu fadhigu uu ka hadlo. 4 dhammaan xildhibaanada kale waa in ay aamusaan marka xildhibaan uu hadlayo uu ka dhex hadlayo golaha. guddoomiyaha ayaana ogolaan kara in laga dhex hadlo baarlamaanka ama hadalka oo point of order sii kara. 5 iyadoo la fulinayo amarka farqadaha ku xusan xubnaha waa in ay si hagaagsan ugu dhaqmaan qodobada soo socda. xubin kasta waxaa laga doonayaa in ay fikirkeeda ku cabirto si kooban oo cad iyaga oo aan ka baxayn qodobka laga hadlayo laguna celin erayo lamid ah erayo isku mid ah ilaalinayna waqtiga loo qadaray ama loo qaragay. b xubin walba waxaa waajib ku ah in ay ka rusheegto qodobka ay ka hadlayso. c waxaa waajib ku ah xubin kasta in uusan hadalkeeda xiisab kicin khalkhalna uusan gelinin waddanka iyo shacabka. d xubin kasta waa inay ilaalisaa sharafta iyo xasaanadda aqalka xubnaha iyo heedaha kale. e soo jeedinta xubin walba waa in ay ku salaysan tahay mabaadi'da iyo fikradda uu ku taageerayo ama uu kaga hor imanayo iyadoo la dhowrayo xubnaha kale. f xubinta cabiraysa fikirkeeda laguma samayn karo guruunac, qaylo, sacbin, foori iyo wixii kale ee dhaqan xumo ah. g xubnaha golaha ma horkeeni karto ra'yi aan waafaqsanayn ajandaha xilliga fadhiga hortaada haddii aanu ogolaan guddoomiyaha. h xubnaha kama bixi kara fadhiga kadib marka ay soo jeediso fikraddeeda. i xubina kama qaybin karto golaha qoraal uusan u fasaxin guddoomiyaha. j waxaa ka reeban xubnaha inay qalalaaso ku sameeyaan golaha iyo gaarkiisa. k waxaa ka reeban xubnaha in ay taagnaadaan ama ay u iljibiyaan martida fadhida. i waxaa reeban in laga baxo fadhiga marka uu guddoomiyuhu hadlayo ama ay socoto codbixin. m waxaa reeban in lala yimaado calaamado, qoraallo, halkudhigyo, slogans iyo dhawaaq muujinaya is-hortaag howlaha golaha. xilliga uu hogaaminayo guddoomiyaha shirka looma tegi karo waxna looma sheegi karo. xoghaynta ayaa wixii qoraala loo marinayaa. 6 xubintii rabta inay hadal jeediso waxay raacaysaa tallaabooyinka. 1 xubin walba waxa ay ku bilaabaysaa hadalkeeda mahadsanid guddoomiye. 2 b waxay isticmaalaysaa xildhibaan marka ay tilmaamayso xubin kale ama mudane ama marwo marka ay sheegayso qof kale oo madaxda ka mid ah. c xubintii rabta in ay hadasho waxay taagaysaa gacanta iyadoo aan qaylin, kicin ama ficil kale aan samaynin. d xubin kasta ma hadli karto calaamadna kuma muujin karto ra'yigeeda hadduusan guddoomiyuhu usan u ogolaan. e xubintii hadasha iyadoon guddoomiyuhu u ogolaan waa uu ka joojinayaa hadalka wuxuuna hadalka siinayaa ciddii ku xigtay. 7 marka uu xildhibaan dhammeeyo la hadlidda waa inuu fadhigiisa ku noqdaa. xildhibaankii ku adkaysta in uu hadlo iyadoon guddoomiyuhu fasaxin oo uu xildhibaanka la hadlayo guddoomiyuhu wuxuu amri karaa inuu ka baxo kalfadhiga. 9 xildhibaankii caddaysta qas waxaa loo gudbinayaa guddiga anshaxa. qodobka 29 soo bandhigida qoraalada laying of favors. 1 qoraal quseeya ama arrimo qaas ah sida warbixinada deegaamada kala soo jeedin la xiriirta xaaladda waddanka kusoo siyaadin wixii la mid ah waxaa golaha usoo bandhigi karaa xildhibaan ama xildhibaano. 2 nuqulka qoraalka la soo gudbinayo waa in loo qaybiyaa xildhibaanada kadib marka uu guddoomiyuhu ogolaado. 3 haddii shaksigu uu soo bandhigayo qoraalka uu codsado inaan faahfaahin kooban uu ku sameeyo waa in loo ogolaadaa. 4 warqadda uu soo bandhigayo waxaa loo diiwaangelinayaa in la soo bandhigay. qodobka 3 daahfurnaanta iyo fadhiyada golaha. fadhiyadu waxay u furan yihiin dadweynaha hadduusan guddoomiyaha ama goluhu si kale u go'aamin. fadhiyadana waxaa laga baahin karaa warbaahinta iyadoo la tixgelinayo go'aanka golaha. qaybaha kala duwan ee bulshada, culamaawidiinka, aqoon-yahanka, dhalinyarada, haweenka iyo xisbiyada ama koox gaar ah ayaa codsan karta inay goobjoog ka ahaadaan fadhiyada arrin gaara oo khusaysa ama fadhiyada arrimaha xasaasiga ee taabanaya mustaqbalka dadka, dalka iyo diinta. b waxaa codsiga ka qaybgalayaasha go'aan ka gaaraya guddoomiyaha islamarkaana faraya in lagu soo daro ajandaha.
labo dadka kale ee loo ogolaaday in ay ka qayb galaan waa inay fadhiistaan meel qaasa oo ka soocan kuraasta xubnaha waana in ay aamusnaadaan mana muujin karaan calaamad aqbalaad ah ama diib ah habowraha ama ku-xigeenadiisa ayaa markuu guddoomiyuhu amro kadib dibadda u saaraya ciddii u hoggaansan weyda nidaamka golaha saddex dadka loo ogolaaday inay dhegaystaan doodaha waa in ay haystaan kaarka martida oo ay muujiyaan waqti kasta lagana ururiyo dhammaadka fadhiga haddii dibadda loo saarayo sida ku cad faqradda labaad ee qodobkan afar marti ama dhegayste kasta oo u gafa sharafta iyo karaamada xubin ka tirsan golaha waxaa lagu wareejinayaa saraakiisha amniga si tallaabo sharci waafaqsan looga qaado shan golaha waxa uu soo saari karaa xeer ku aadan habdhaqanka dadweynaha wakiilada ka socda saxaafadda iyo cid kale oo dhegaysiga kalfadhiga cid walboo dhegaysanaysa kalfadhiga gudoomiyaha waxa uu amrayaa ciddii u hoggaansan weyda xeerarkani inay ka baxdo dhismaha golaha b haddii hay-adda amniga ee golaha shacabku waa inay isla markiiba fuliyaan amar kasta oo ka soo baxa gudoomiyaha ee arrintan ku saabsan qodobka 13 noocyada codaynta golaha kow codbixintu waxay u dhacaysaa siyaabaha soo socda codbixin gacantaaga b codbixin qarsoodi ah c codbixin qoraal ah codbixinta qarsoodiga waxaa loo samaynayaa sida soo socda gudoomiyaha waa inuu diyaariyaa sanduuqa codbixinta gudoomiyuhu waa inuu sharaxaa habraaca codaynta gudoomiyuhu waa inuu amro yeelista magacyada xubnaha iyo qaybinta xubnaha xaashida lagu codaynayo d gudoomiyaha waa inuu xaqiijiyaa xubnaha codeeyey kuwa aamusay iyo kuwa ka xumaaday kadibna waa inuu ku dhawaaqaa natiijada codbixinta saddex codbixin qoraala marka ama yeelid waxaa la qaybinayaa marka gudoomiyuhu ama ugu yaraan 10 xubnood sidaas ay codsadaan goluhuna go-aankaas qaato marka la qaadanayo codbixin qoraal ah magac yeelid xubin kasta oo codaynaysa magaceeda hortiisa ayaa lagu qorayaa codkeeda haa ama maya ama maqnaanshaheeda waana in lagu horqoraa magaciisa ama magaceeda afar sharci ahaan haddii codaynta mooshin laga hor keenay golaha ay barbardhac noqoto mooshinkaas ma meel maray haddii codbixintu ay gacantaag tahay gudoomiyaha ayaa codaynaya si uu u kala saaro labada dhinac marka ay isbarbardhac noqdaan shan marka laga reebo codbixinta qarsoodiga ah iyo codbixin magac weyeelid oo goluhu ogolaaday sida ku qeexan dastuurka ama xeeroosaadka dhammaan codbixinada kale ee caadiga ah waa gacantaag waxaana la tiriyaa saf walba mar lix xubnaha joogtada fadhiga balse aan qayb ka ahayn ka qayb qaadan codbixinta waxaa loo xisaabayaa sida codka xubnaha aamusay oo kale toddoba in loogu dhawaaqayo natiijada codbixinta xubin ka tirsan looma ogola in ay hadal u jeediso golaha haddii uu ogolaado inay jiraan qalad ku yimid codbixinta qarsoodiga ah ama codadka la riday in ay ka badan yihiin tirada xubnaha jooga gudoomiyuhu wuxuu burinayaa natiijada codbixinta wuxuuna isla markiiba qabanayaa codbixin kale oo cusub natiijada codbixin kasta waxaa ku dhawaaqaya gudoomiyaha isaga oo sheegaya tirada codadka ogolaaday iyo inta diiday iyo codadka halaabay qodobka 13 kaydinta iyo xafidaadda kalfadhiyada golaha hadal qoraal kasta ama minutes ayaa noqonaya kaydinta rasmiga ah ee waxa uu qabtay goluhu waxaana diyaarinaya xogayaha guud hadal qoraalada fadhiga waxaa saxiixaya xogayaha golaha shacabka ee shaqada ku leh si uu u xaqiijiyo hadal qoraalku inuu saxan yahay hadal qoraalada waxaa lagu xusayaa lambarka kalfadhiga lambarka fadhiga waqtiga iyo goobta fadhiga lagu qabtay cidda gudoomisay fadhiga xubnaha ka soo qayb galay haddii ay joogeen ilaa gabagabada fadhiga ama ay ka joogeen qayb keliya xubnaha maqan ee fasaxa qaaday xubnaha maqan ee aanan fasax qaadan ajendaha maalintaas soo koobidda arrimaha laga hadlay iyo go-aanada la qaatay fadhiyada waqtiga la xiray fadhiga go-aamada gudoomiyaha ee la xiriira habraaca ogolaanshaha soo jeedimaha inta uu fadhigu u socday hadal qoraalka fadhigaas goluhu wuxuu ansixinayaa fadhiga xiga haddii la waayo xubin ka soo horjeeda hadal qoraalkaas waxaa loo qaadanayaa si wada jira in loo ansixiyay keliya xubnaha soo jeedinaya wax ka bedel ama faahfaahin fikirkooda ayaa ka hadli kara hadal qoraalka shan nuqulka rasmiga ama original code ee hadal qoraalka waxaa kaydinaya xogayaha guud ee golaha lix hadal qoraalka waxaa loola jeedaa kayd qoraal oo koobaya waxa laga hadlay toddoba duubista codka ama muuqaalka waxaa loola jeedaa dhammaan duubista waxa la yidhaahdo ee fadhiyada buuxa iyo kuwa guddiyada
sideed gabagabada fadhi kasta ama hadallada qoraalada iyo qoraalada kale waxaa lagu kaydinayaa kaydka iyo bogga internetka loona fasaxayo dadweynaha sida uu sharcigu farayo. Ilmaan Ashbos. Ayah ganta dah, dia ganta dah ayah dah. Okey, besar apa? Bangtan kulit. Waxyaan waxaan ku daraynaa farba baan ku daraynaa aad u badan yahay hoosadka ilmaan mutaan kuleed ah hadda isaga aan tagaa ayalma ilmaan kale yimid bes okay ayay wada ilmaanka markuu dhameeyo waan joojinaynaa aad u badan yahay salaadan waa jirtaa maanta waa ii kala shaqada iyo qabsan doona insha Allah. bismillaahi rahmaani rahiim qodobka saddexaad qeybta guud ee guddiga kow ini hooba afka laga fogeeyo hadday maxaa laga yaabaa sidana waan dejinayay afka ku dhawaay dad aad u maqlayn hooba iska ilaaliya. okay bismillaahi rahmaani rahiim guddiyada golaha cutubka shanaad qodobka saddexaad xeerka guud ee guddiyada kow sida ku cad qodobka lixdan faqradiisa labaad ee dastuurka golaha shacabka ayaa sameynaya guddiyada uu lagama maarmaan u arkayo si uu u guto waajibaadkooda u gutaan. labo golaha shacabku waxa uu dhisayaa guddiyo ayna ku jirin madaxda guddiyada islamarkaana waxa uu qeexayaa waajibaadka shaqo ee guddiyadaas kadib markii uu guddoomiyaha golaha shacabku soo jeediyo isagoo la tashanaya ku-xigeenadiisa. saddex guddi kasta wuxuu arrin qaas ah oo leh waqti cayiman awgeed uga soo darsan karaa xubnihiisa xildhibaan ama xildhibaano aan horey uga mid ahayn guddigaas kadib marka xubnaha guddiga arrintaas iskula qaataan codayn aqlabiyada. xubin lagu soo daray guddi marxalad gaar awgeed waxay ka qaybgeli kartaa fadhiyada guddiga laakiin ma laha xuquuqda codaynta ee arrimaha uu guddigu go-aan ka gaaray. afar marka ay jiraan duruufo guddiyadu waxay isla isticmaali karaan qalabka iyo adeegyada kale ee laga heli karo. shan guddoomiyaha golaha isagoo la tashanaya ku-xigeenadiisa wuxuu magacaabayaa guddiyo u xilsaaran inay qabtaan howlo gaar ah warbixintoodana usoo gudbinaya guddoonka golaha shacabka si loo horgeeyo golaha. haddii hal shaqo ay ka wada dhexayso dhowr guddiga arrinta mas-uulka ka ah iyo guddiyada hawsha kala dhexayso waa inay si waafaqsan waqti xadidan oo ku habboon gudbinta aragtidooda. guddiyada xiriirka baarlamaanka dunida iyo saaxiibtinimada. kow golaha shacabku waxa uu abuurayaa guddiyo ku matala xiriirada golayaasha baarlamaanka dunida iyo baarlamaanka dalalka saaxiibada la-ah. labo guddiyada xiriirada baarlamaanka ee dunida iyo dalalka saaxiibada la-ah waxay ku dhaqamayaan xeerka iyo nidaamka u degan guddiga joogtada ee golaha shacabka sida ku cad xeer hoosaadka golaha. saddex guddoonka goluhu wuxuu xaq u leeyahay inuu kala diro guddiyada xiriirada baarlamaanka dunida iyo saaxiibnimada islamarkaana dib u dhiso iyo inuu wax ka bedel ku sameyn karo xilli kasta. afar guddiyada xiriirada baarlamaanka dunida iyo saaxiibtinimada waa inay golaha keenaan warbixinno howleed oo la xiriira kulamada iyo safarada ay u baxaan. c haddii shaqo awgeed la isku daro guddiyo kala madax bannaan guddoomiyuhu wuxuu u xilsaarayaa mid ka mid ah ku-xigeenadiisa inuu guddoomiyo kulamada guddiyada la isku daray. lix dhismaha xubnaha guddi waxaa lagu salaynayaa aqoonta khibradda dheelitirka iyo matalaadda bulshada deegaamada iyo qaybaha bulshada iyadoo xubnaha ka dhimanaado uu dhammaystirayo guddoomiyaha oo kala tashan kara labadiisa ku-xigeen. c guddiyada xiriirka baarlamaanka dunida iyo saaxiibnimada. kow golaha shacabku wuxuu abuurayaa guddiyo ku matala xiriirada golayaasha baarlamaanka dunida iyo baarlamaanka dalalka saaxiibada ah. labo guddiyada xiriirada baarlamaanka dunida iyo dalalka saaxiibada ah waxay ku dhaqmayaan taas waa copy error waaye ayadaa soo noqotay markaa ku gudbayna. qodobka 34 isla page 39 waajibaadka guddiyada golaha shacabka. waajibaadka shaqo ee guddiyada golaha shacabka
marka lagu daro shaqooyinka iyagoo u khaaska ah iyo xeroosaadka farayo waxay ahaanayaan sida soo socota. kow, inay fuliyaan shaqo kasta oo golaha shacabku u xilsaaro. labo, inay baaraan, ka doodaan, talana ka bixiyaan sharciyada qabyada ah ee la horkeeno golaha shacabka. saddex, inay keenaan sharci kasta oo qabyo ah ama qaraaro qabyo ah oo ku saabsan waxyaabaha ay shaqadoodu tahay marka laga reebo hindisa sharciyeed la xiriira miisaaniyadda sanadlaha ah iyadoo isu raacayaan ugu yaraan 10 xubnood oo guddiga ka mid ah. afar, inay golaha shacabka u soo jeediyaan sharciyo qabyo ah hindisa sharciyeed ah oo ay tahay in xukuumadda loo faro inay kafaalo qaato. number 5, inay tala siiyaan guddiga miisaaniyadda iyo maaliyadda lacagta iyo ilaalinta hantida qaranka arrimaha ku saabsan mudnaanta miisaaniyadda ee wasaaradaha ama hay'adaha kale ee shaqadooda hoos timaado. number 6, inay baaraan talana ka bixiyaan siyaasadda saameynta ku leh wasaaradaha guddiyada shaqada kala dhaxayso. 7, inay ka tala bixiyaan ama ay caddeeyaan arrimaha golaha shacabku soo gudbiyo. 8, inay keenaan dooda baarlamaanka ka yeesho oo ah arrimaha faa'iido ugu jirta ummadda. 9, inay qiimeeyaan kormeeraan habka loo qabto iyo habka loo hirgeliyo sharciyada iyo qorshayaasha xukuumadda iyo hay'adaha ama koox kasta oo sharci ahaan shaqo kala dhaxayso. 10, inay dib u eegis ku sameeyaan qorshaha qarashaadka waqtiga loo dhexe iyo kan fog ee hay'adda ama hay'adaha loo xisaabay. 11, inay bilaabaan baaritaan la xiriira shaqada guddi kasta oo u xilsaaraya. 12, inay sameeyaan cilmi baaris ku saabsan shaqada guddi kasta oo u xilsaaraya. 13, inay sameeyaan dadaal kasta oo ay kula falgalayaan kuna kasbanayaan bulshada rayidka ah. 14, in golaha shacabku ku wargeliyaan shaqooyinkooda. qodobka 35aad, guddoonka guddiyada. kow, guddi kasta ee golaha shacabku waa inuu yeeshaa guddoomiye ku-xigeen iyo xoghayn oo ah hoggaanka guddiga. 2, xubin kasta oo ka mid ah guddoonka guddiga waa in laga dhex doortaa xubnaha guddiga dhexdooda laguna doortaa cod aqlabiyad ah oo ka yimid xubnaha guddiga. 3, guddoomiyaha guddiga ayaa saxiixaya go'aamada guddiga. haddii guddoomiyaha maqan yahay waxaa shaqadiisa qabanaya guddoomiye ku-xigeenka. haddii labadooda maqan yihiin waxaa hawshooda qabanaya xoghayaha guddiga. haddii isagana maqan yahay guddiga qof ayay iska dooranayaan oo sii wadaya hawsha guddiga waxaana la ogeysiinayaa guddoomiyaha guddiga. 4, haddii guddoomiyaha guddigaasi uu soo gudbiyo istiqaalo qoraal ah, haddii uu dhinto, haddii ay timaado xilgudasho la-aan joogto ah ama uu si joogto ah u maqnaado kulamada, guddigu waxa uu arrinkaas ku wargelinayaa guddoomiyaha guud ee golaha shacabka si ay u doortaan guddoomiye cusub. 5, farqadda 4 ee qodobkan waxay sidoo kale saameynaysaa guddoomiye ku-xigeenka iyo xoghayaha guddiga. qodobka 36aad, guddiga joogtada ah ee golaha shacabka. guddiga joogtada ee goluhu wuxuu ka koobnaanayaa guddoomiyaha, labada guddoomiye ku-xigeen, habdhowraha iyo labadiisa ku-xigeen iyo dhammaan guddoomiyeyaasha dhamcan guddiyada. 2, guddoomiyaha ayaa guddoominaya guddiga joogtada. 3, xilka iyo waajibaadka guddiga joogtada ah waa sida soo socota. wuxuu diyaarinayaa isla markaasna maamulaa barnaamijyada iyo howlaha kala fadhiyada golaha. 2, wuxuu diyaarinayaa isla markaasna maamulaa jadwal qorsheedka fadhiga golaha. C, guddiga joogtada ahi wuxuu u gudbinayaa guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa wixii warbixin ah ee ku saabsan waxqabadka iyo baahida guddiyada golaha shacabka. sidoo kale waxay gudbinayaan guddiga wixii qorshe howleed ah oo ka soo baxa guddoonka iyadoo loo marsiinayo guddoomiye kasta guddigiisa inuu gaarsiiyo ama uga warbixiyo. D, ilaa iyo inta la dhisayo xafiiska guddiga adeega baarlamaanka wuxuu diyaarinayaa miisaaniyad sanadeedka golaha shacabka una gudbinayaa golaha shacabka si loo ansixiyo isla markaasna xakamayn miisaaniyadeed loogu sameeyo howlaha dhaqaale ee golaha. E, wuxuu go-aan ka gaarayaa qaybinayaa miisaaniyad sanadeedka shaqo ee guddiyada golaha. F,
wuxuu tixgelinayaa barnaamijka shaqo ee guddiyada oo ay ka mid yihiin haddii loo baahan yahay socdaal iyo kulamo lagu qabanayo meelo ka baxsan dhismaha golaha. G wuxuu ka doodaa go-aan ka gaaraa warbixinta guddiyada ee looga doodi doono golaha. H guddoomiyaha ayaa magacaabaya xogayaha guud kadib markuu kala tashado guddiyada waxaana ansixinayo guddiga joogtada ah ee golaha shacabka. 4 marka guddiga joogtada ah codeynayo guddi kasta wuxuu leeyahay hal cod waxaana u codeynayo guddoomiyaha. haddii guddoomiyuhu maqan yahayna guddoomiye ku-xigeenka, haddii isna maqan yahayna waxaa codeynaya xogayaha. haddii ay wada maqan yihiin xubinta guddiga ah ee guddoomiyuhu u soo wakiisho inuu kulanka ku matalo guddiga ayaa codeynaysa. qodobka 37 guddi hoosaadyada. 1 guddigu waa inuu abuuraa guddi hoosaadyo marka uu arko inay tahay muhiim si ay hawshu ugu fududaato. 2 guddi hoosaadku waa inuu helo awood buuxda iyadoo loo eegayo waajibaadka uu faray guddigu. 3 xubnaha guddi hoosaadku waa xubno ka mid ah guddiga caadiga ah. 4 iyadoo la tixraacayo howlaha khaaska ah ee guddi hoosaadku leeyahay guddigu wuxuu caddayn karaa taariikhda ay tahay in guddi hoosaadku uu ku soo celiyo warbixintiisa. 5 marka guddi hoosaadka loo xilsaaro inuu arrin cayiman daraaseeyo guddi hoosaadkaas jiritaankiisu waxa uu ku egyahay kadib markuu keeno warbixintaas ugu dambaysa. 6 marka guddigu ka helo guddi hoosaadka warbixinta ugu dambaysa guddigu waa inuu darsaa ansixiyaa warbixinta kama dambaysta ah isla mar ahaantaasna waa in guddoomiyaha guddigu u gudbiyaa golaha shacabka. guddi hoosaadka awood uma laha inay toos u gudbiyaan golaha shacabka warbixintooda. guddi hoosaadku kama garab furi karo kulan iyadoo uu socdo kulankii guddigu. qodobka 38 qorshayaasha shaqo qoondaynta miisaaniyadda guddiga. 1 guddoomiyuhu isaga oo la tashanayo xubnaha kale ee guddiga waa inuu diyaariyo bilowga sanad kasta ugu dambeyn bisha 3aad kowda maarso weeyaane qorshaha shaqo iyo howlaha guddiga taasoo ay ka mid noqon karto abuurista guddi hoosaadyada. qorshaha shaqada waa inuu ansixiyaa guddiga. 2 guddigu waa inuu qiimeeyaa qorshaha shaqo ee wasaaradda shaqada kala dhexaysa 3 biloodba mar haddii ay muhiim noqotona waxbay ka bedeli karaan qorshahooda. 3 guddigu waa inuu diyaariyaa oo ansixiyaa qorshe howleed sanadlaha oo la kor joogteeyo in wasaaradda ama hay'adaha kale ee qaranka ay dhaqan gelinayso sharciyada oo ay ku jiraan la socoshada dhammaan howlaha wasaaradda taasoo qayb ka ah qorshe howleedka guddiga. 4 guddigu waa inay helaan adeegyada khubrada xirfadlayaasha shaqaalaha farsamada iyo kaaliyayaasha xafiisyada hadba sidii uu guddigu u arko inay tahay muhiim hadba inta ay awood u siinayso miisaaniyadda uu ansixiyey golaha shacabka. 5 guddiyadu waa inay awood loo siiyo inay u safraan meel ka baxsan xarunta golaha shacabka si ay u soo dhegaystaan caddeymo u sameeyaan la tashiyo ama ay u booqdaan goobo la xiriira baaristooda. 6 xoghayaha guddigu waxa uu u xilsaaran yahay diyaarinta dhammaan safarada guddiga sida uu u sheego guddoomiyaha guddiga. 7 guddoomiyaha guddi kasta isagoo la tashanaya xubnaha kale ee guddiga waa inuu diyaariyaa miisaaniyadda sanadka soo socda oo ku salaysan qorshahooda shaqo waana inuu usoo gudbiyaa xafiiska guddiga joogtada golaha shacabka si loo ansixiyo. guddigu waa inuu ansixiyo miisaaniyaddiisa ugu dambeyn bisha 3aad kowda maarso. 8 miisaaniyaddu waa inay ku jiraan aanayse ku xadidnaan qarashka helidda adeegyada khubrada xirfadlayaasha shaqaalaha farsamada iyo kaaliyayaasha xafiisyada hadba sida loo arko inay muhiim u yihiin. qarashka safarada xubnaha guddiga ama xubnaha shaqaalaha ee la xiriira shaqada guddiga sida sharcigu ogol yahay. qarashaadkaas waxaa ka mid ah
kan raacista gaadiidka cuntada guna maalmeedka hooyga xubnaha kirada qololka shirarka adeegyada turjumaadda iyo kharashaadka kale sida saadka dirista dhambaalada iyo warqadaha iibista qoraalada iyo qalabka kombiyuutarada iyo adeega cabitaanka qaboojiyayaasha 9 qarashaadka guddigu waa inaysan ka hor imaan xadaynta cayiman ama sharciyada 10 codsiga ogolaanshaha safarka waa in hab qoraal ah loogu soo gudbiyaa xafiiska isagoo caddaynaya ujeedada safarka taariikhda safarka c meesha loo safrayo d magacyada xubnaha safraya e qiimaha ku baxaya safarka 11 guddigu waa inuu diyaariyaa golaha shacabkuna u gudbiyaa warbixin qoran oo ku saabsan safar kasta oo guddigu galo ee ku xusan qodobka warbixintu waa inay ku jirto faahfaahinta safarka qarashaadka howlaha warbixinta la helay iyo go'aamada laga gaaray safarka 12 tixgelinta sharciyada qabyada waa inay lahaadaan mudnaanta koowaad ee guddiyada oo dhan waa inay ka hormaraan daraasadaha iyo baaritaanada kale oo dhan qodobka 39 shaqaalaha guddiyada 1 golaha shacabku waa inuu siiyaa guddiyada shaqaale maamul iyo mid farsamo marka guddiga la siiyo shaqaale taageero xoghayaha guddiga ayaa kormeelaya shaqaalaha maamulka guddiga qodobka 4 qoraalada guddiga 1 xeerarka quseeyo qoraalada golaha shacabka marka lagu sameeyo isbedello ama adjustment laga maarmi waayo waxay saameyn ku yeelanayaan qoraalada guddiyada 2 hadal qoraalka shirarka minitiska guddiyada waa in loo qoraa hab la mid ah kuwa shacabka waxa uu sii dheer arrimaha hoos ku xusan haddii shirka uu ahaa mid furan ama mid xiran b magacyada shaqaalaha goobjoogga ka ahaa c magacyada markhaatiyaalka mas-uuliyadooda iyo hay-adaha ay ka kala socdaan haddii ay jiraan 3 hadal qoraalka waa inay ku saxiixan yihiin xoghayaha iyo xoghaynta guddiga 4 warbixinta guddiga ee loo gudbinayo golaha shacabka waxay noqonaysaa kuwo kooban markasta waa inay daabacan yihiin mid walba isku dhegan yihiin iyada oo gaarkeeda ah 5 hadalka qoraalka shirarka guddiyada oo maqal iyo muuqaal ah waa la samayn karaa haddii sidaas guddigu go'aansado qodobka 41 kulamada guddiyada 1 guddiyadu waa inay si joogtaa u kulmaan ugu yaraan 2 jeer bishiiba waqtiyada lagu jiro kala fadhiyada golaha shacabka waqtiyada kulamada waxaa goynaya guddoomiyaha ama waxaa tala ka soo jeedinaya golaha 2 guddi walba xaq uu u leeyahay inuu u kulmo xitaa marka kala fadhiga ay xiran yihiin 3 guddi kulan kale ma yeelan karo kama garab furi karo kulan kale iyadoo uu socdo kulanka golaha shacabka haddii uusan helin ogolaansho guddoomiyaha golaha shacabka 4 marka uu helo codsi ay ku saxiixan yihiin ugu yaraan 3 meelood meel xubnaha guddiga guddoomiyaha guddigu waa inuu qabtaa kulanka muddo ku siman 10 maalmood gudahood oo maalmo shaqo ah iyadoo xubnaha guddiga lagu wargelinayo jiritaanka kulanka ugu yaraan 48 saacadood ka hor sababta loo qabanayo kulankaas waa in lagu caddeeyo wargelinta number 5 kadib marka uu guddoomiyaha guddigu amro xogayuhu waa inuu siiyaa xubin kasta oo ka mid ah guddiga ogeysiin ku saabsan kulankaas ugu yaraan 48 saacadood ka hor kulanka ogeysiiskaasi waa inuu ku cad yahay ajendaha shirka waqtiga iyo goobta lagu kulmayo number 6 xogayuhu waa inuu shir walba oo guddiga leeyahay qoraal ahaan ugu wargeliyo guddoomiyaha golaha shacabka number 7 guddoomiyaha guddigu waa inuu siiyaa xubin kasta oo ka mid ah guddiga wax allaala wixii qoraal ah ama documentisa ee la xiriira ajendaha number 8 markasta oo ajenda ka mid ah ajendayaasha kulanka uu quseeyo wasaaradda guddoomiyaha guddigu waa inuu xaqiijiyaa in wasaaradda shaqada kule la gaarsiiyo ogeysiin ku saabsan kulanka guddiga ugu yaraan 48 saacadood ka hor haddii aysan guddigu go'aansan si kale sida aan la ogeysiin wasiirka jiritaanka kulanka qodobka 42 kulamada khaaska ah iyo kuwa guud
shirka guddiyada wuxuu noqonayaa mabda ahaan kuwa u furan dadweynaha marka laga reebo xilliyada uu guddigu kow ka doodaya arrimo qarsoodi ah oo taabanaya amniga dalka, labo ka doodaya faahfaahin ku saabsan qandaraas ganacsi oo ay ku lug leeyihiin hay-adaha jamhuuriyadda Soomaaliya, iyo cid saddexaad oo looga hadlayo arrimo qandaraas oo qarsoodi ah. saddex diyaarinayo tala soo jeedin qabyo qoraal ama dhammaystiran oo ka mid yihiin qoritaanka warbixinta muhiimka u ah golaha. afar uu sidaa go'aansado iyadoo oo lagu salaynayo codka aqlabiyadda xubnaha guddiga. qodobka 34 ajandaha kulamada guddiyada. kow guddoomiyaha guddiga isagoo la tashanaya xubnaha guddiga waa inuu go'aamiyaa ajandaha kulanka. laba guddoomiyuhu waa inuu qoraa ajandaha kulanka isagoo tixraacaya qorshaha shaqo ee guddiga iyo kan golaha shacabka. saddex gabagabada kulan kasta oo uu yeesho guddigu waa inuu guddigu ka doodaa waxa uu ku saabsan yahay kulanka xiga ee guddigu yeelan doono, waana inay diyaariyaan nuqulka ajandaha ee kulankaas. kadib marka uu guddoomiyuhu helo codsi ku aadan arrin ay tahay in laga doodo oo ay ku saxiixan yihiin ugu yaraan 3 meelood hal meel xubnaha guddiga waa inuu guddoomiyuhu arrintaas ku daro ajandaha. number 5 guddigu waxa uu ku bedeli karaa ajandaha cod aqlabiyada. qodobka 44 soo xaadirista kulamada guddiyada. haddii xubinta oo aan fasax ka helin guddoomiyaha guddiga iyo guddoomiyaha golaha shacabka uu ka maqnaado 6 kulan oo isku xiga ama uuna ka soo qaybgelin kulamada guddiga oo dhan muddo ka badan 3 bilood, waxaa xubintaas loo gudbinayaa guddiga xiroosaadka, daryeelka, anshaxa iyo xasaanadda. labo haddii guddoomiye ku-xigeenka guddiga iyo xoghayuhu iyagoo aan ogolaansho ka haysan guddoomiyaha golaha shacabka iyo guddoomiyaha guddiga ay ka maqnaadaan 4 kulan oo isku xiga ama kulamada guddigu yeesho oo dhan waqti ka badan 2 bilood, waxaa si dhaqso leh loogu gudbinayaa guddiga xiroosaadka, daryeelka, anshaxa iyo xasaanadda. saddex haddii guddoomiyaha guddiga isagoo aan haysan ogolaansho guddoomiyaha golaha shacabka uu ka maqnaado 4 kulan oo isku xiga ama kulamada ay yeeshaan guddiga waqti ka badan 2 bilood, wuxuu weynayaa xilka guddoomiyenimada. 4 xoghayaha guddiga waxaa laga doonayaa inuu ku wargeliyo guddiga marka ay jiraan ama ay muuqdaan arrimo ku xusan qodobka 1, 2, 3 ee qodobka. number 5 xubintii lumisa xilka ay guddiga u haysay wuxuu noqonayaa xubin guddiga ka tirsan haddii aan guddoonka goluhu go-aan kale ka qaadano, waa inuu soo xaadiraa kulamada guddiyada. qodobka 44 habka kulamada guddiyada. kulamada guddiyada waa inuu guddoomiyo guddoomiyaha guddigu. number 2 haddii uu maqan yahay guddoomiyaha guddiga, guddoomiye ku-xigeenka ayaa shaqadii guddoominaya. number 3 guddoomiyaha waa inuu maamulaa dooda guddiga isagoo xaqiiqsanaya, aqoonsanaya qof kasta oo hadlaya, xaqiiqsanaya in waxyaabaha laga doodaya ay waafaqsan yihiin sharciyada iyo xeerarka jira. number 4 guddoomiyuhu waa inuu xaqiiqsadaa qofka uu yahay ka hor inta aanay hadlin xubnaha guddiga. number 5 guddoomiyuhu waa inuu ogolaado xubnaha in ay u hadlaan sida ay u kala horeeyaan codsiga ah inay hadlaan. 6 haddii nidaamka kulanka aan la ilaalin, guddoomiyuhu waxa uu joojin karaa kulanka. number 7 xubnaha guddigu waa inay waxay iska dhex dooranayaan guddoomiye haddii guddoonku ka maqnaadaan shirka guddiga. 8 karaaniga guddiga ayaa ka mas-uul ah qaadista minidyada qoraallada kulanka, galaynta, xafididda, helidda iyo qaadista qoraallada xafiiska guddiga, fududeynta xiriirka guddiga iyo xukuumadda. guud ahaan xoghayaha ayaa la socodsiinaya gelinta go'aamada guddigu gaaro. 9 xoghayaha guddiga ayaa u xilsaaran kormeerka karaaniga kaleerka ee guddiga. qodobka 46 guntanka guddiga. 1 inta badan ee xubnaha guddiga ayaa ah kooramka. waxaa loo baahan yahay inuu kooramku dhan yahay marka guddigu go'aan gaarayo. qodobka 47 codaynta guddiyada. 1 go'aanada guddiga waxaa la gaaraa iyadoo la raacayo ansixinta mooshin ku yimaado cod aqlabiyada oo ay ku codeeyaan inta badan xubnaha jooga ay codaynaya. 2 haddii uu codku noqdo barbardhac halka uu guddoomiyaha codkiisu raaco ayaa la ansixinayaa. 3 gabagabada dooda ee arrin
laga doodi karo haddii talo laga soo jeediyo guddoomiyaha ayaa u akrinaya guddiga qodobada laga soo jeediyey waxa uuna weydiinayaa inay aqbalaan in laga doodo iyo in kale. 4 haddii uu jiro khilaaf cad oo ku saabsan ka doodi soo jeedin la keenay oo u dhaxaysa guddiga, guddoomiyuhu wuxuu ugu baaqayaa guddigu inay cod u qaadaan arrinkaas. 5 xubnaha guddigu waxay u codaynayaan iyaga oo taagaya gacanta tirada codadkaas dhinaca kasta waa inay lagu qoraa ama lagu sheegaa minadka kulanka guddiga. Number 6 xubin ka mid ah guddigu waxa ay codsan kartaa codbixinta oo qoran diiwaan gashan waa haddii codsigaas u yimaado ka hor intii aan loo gudagelin codaynta. 7 haddii xubin ka mid ah guddiga ay codsato inay codaynta loo qoro xogayaha guddiga waa inuu yeeriyaa ama akhriyaa magacyada xubnaha sida ay ugu kala horeeyaan xaraf ahaan. xubin kasta waxa uu ku jawaabayaa haa ama maya. natiijada codka waxaa ku dhawaaqaya xogayaha guddiga. guddoomiyaha guddiga waxa uu caddaynayaa inay jeedintaas mooshinkaas la ansixiyey lana aqbalay iyo in la diiday. natiijada iyo magacyada xubnaha oggolaaday iyo kuwa diidayba waxaa lagu sheegayaa ama lagu qorayaa hadalka qoraalka minitiska kulanka. xogayaha waa inuu xaqiijiyaa in go'aamada guddiga loo diro guddoonka golaha. qodobka 48 dhegeysiga dacwadaha dhegeysiga dadweynaha. 1 si loo helo warbixino la xiriira arrinta guddigu ka doodayo, guddigu waxa uu qaban karaa kulamo furan oo ay dhageystaan khabiiro wakiilo ka socda ururada bulshada rayidka ah iyo shakhsiyaad kale ee keeni kara warbixino muhiim ah. 2 marka shaqo loo xilsaaro guddi si uu uga doodo, guddiga arrinta mas-uulka ka ahi waa inuu oggolaado inuu qabto kulan dadweynuhu dhegeysanayaan haddii 4 meelood hal meel oo ka mid ah xubnaha guddiga ay sidaan dalbadaan. 3 haddii dhegeysiga dadweynaha ay dalbadaan xubno laga tiro badan yahay oo guddiga ka mid ah dadka ay magacaabeen kooxdaas yari waa in la dhegeysto. cutubka qodobka 49 warbixinta safarada dibadda ee wufuudda golaha shacabka. 1 madaxa wafdiga ama xildhibaanka ku hadlaya magaciisa waa inuu 14 maalmood oo ka bilaabanaysa maalinta wafdiga dib ugu soo noqdo dalka gudahooda usoo bandhigaa warbixin howlaha wafdiga. 2 kadib soo bandhigidda warbixinta si waafaqsan farqada 1 guddoomiyaha goluhu waa inuu cayimaa waqtiga dooda haddii loo baahdo. Asalaamu calaykum warahmatullahi